xisbiga Tawfiiq ayaa shaaciyay inuusan qayb ka ahayn heshiiska isbahaysiga ururada toddobada ah ee shalay looga dhawaaqay magaalada Baydhabo sida lagu sheegay war-saxaafadeed rasmi ah oo ka soo baxay hoggaanka xisbiga. Qoraalka ayaa lagu sheegay in heshiiskaasi uusan metelin mowqifka rasmiga ah ee xisbiga Tawfiiq, isla markaana aan lagu gaarin ogolaansho iyo hanaan waafaqsan nidaamka xisbiga. Sidoo kale xisbiga ayaa ku dhawaaqay in shaqada si ku meel gaar ah looga joojiyay xoghayaha xisbiga Mudane Maxamed Sheekh Cali, iyadoo maamulka xisbigu uu sheegay in talaabadan ay daba socoto baaritaano iyo qiimeyn la xiriira arrimahaasi. Hoggaanka xisbiga Tawfiiq Dr. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa ugu dambeyntii cadeeyay in cid kasta oo ku lug leh heshiiskaasi aysan ku hadli karin magaca xisbiga ilaa go'aan rasmi ah laga gaaro.